السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عبد الرحمن حشان. ما أنتوا حيني وذا وحيابها كينا عاجز كان ما تبان قضب أو كينا عاجز كان. أوكي كسروا هذا الفيديو بين عسو. سأني شيء ما أنتوا حيني وذا تبان قضب أو كينا عاجز كان. أسكب دعونا قضب كقوات. وأنتوا بدك الشرع. hawl kasta oo dib loo dhigaa waa mid keenta in laga caajiso ugu dambeyn oo lagu guuldareysto. hawl kasta oo dib u dhigata ama wax kasta oo agtaada yaala ama wax kasta oo aad gacanta u qaaddo ama wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca samee waad dib u dhigto aad tiraahdo berito la ka dhigo galabta ka dhigo caawa ka dhigo markasta aad tiraahdo xilliga ka dhigo aad markasta dib u dhigto ugu dambeyn waxa aad ku guuldareysanaysaa fursad ha ahaato ama wax ku soo maray markaa waayo wixii waa dayacday waqtigiisina waa dayacday marka waa inaad waxba dib u dhigan haddaad wax kasta dib u dhigato caajiskaaga fara badanaya ama adigu marka caajiskaaga fara badanaya laakiin wixii maskaxdaada markay saa ugu soo dhacaan waa inaad isla markiiba ku dhaqaaqdo aad samaysid aad dib u dhigan marka caajiskaagu wuu yaraanaya laakiin haddaad wax kastaba aad tirahdid aad ka caajistid aad dib u dhigatid tirahdid beritoole ka dhigo waqti waad haysataa galabta waqti waad haysataa ka dhigo laakiin marka waxa maskaxdaada soo ugu soo dhacaan waa inaad wixii isla markiiba samayso aad dib u dhigan qodobkeena labaad qorshe la'aan qodobkeena labaadna waa qorshe la'aan dad badan ayaa waxay ku nool yihiin nolol bilaa qorshe ah taas oo ka dhigta inaanay dhadhamin macaanka nolosha oo ay noqdaan kuwo cagajiid ah oo aan dalayn noloshooda qorshe la'aan noloshaadu inay qorshe la'aan noqoto waa sidii neef xoolaa oo kale ama xayawaan oo kale waayo waxaad noqonaysaa qof cuna oo seexda iskana soo toosa xayawaankuna intaasoo kale ay iskaga simantiin waayo iyaguna way cunaan waay seexdaan waanay soo toosaan markaa waa inaad noloshaada qorshe u yeeshid qodobkeena saddexaad yool la'aan yool inaad lahaataa waxay kaaga baahan tahay hawl badan iyo fikir badan oo aad geliso haddii aanad yool lahayn waxaad ku fadhiisanaysaa oo aad shaqada joojinaysaa dhammaan qaybaha fikirkaaga maskaxda ayaa fadhiisanaya oo shaqada joojinaya haddaad wax yoola lahayn waxaana dareemaysaa caajis taasoo keenaysa quus inaad ka rajo dhigto noloshaada ama aad quusatid bay keenaysaa waayo maskaxdaadii markay shaqadii joojiso yool ama hadaf inaad yeelatidna waa astaanta guusha waayo iminka markaad noloshaada markaad iminka soo kacid aad seexatid aad wax isku cuntid aad qorshe iyo wax yoolaa aad lahayn markaa qof bilaa-aadanaa ma tiid laakiin waa inaad noloshaada yool u yeesho yool ama hadaf markaad u yeesho noloshaadu wax caajisa ma dareemayso waayo mar kasta waxaad tahay qof shaqo ku jira oo wadda haysta markaa waa inaad noloshaada yool u yeeshay si aad caajiska uga hortagtid okay qodobkeena shanaad aan soo qaadano qodobkeena afraad aan soo qaadano waa dhiirigelin la'aan qof markuu yool yeesho ama hadaf markuu yeesho wuxuu u baahan yahay dhiirigelin buu u baahan yahay dhiirigelintu waa shidaalka ugu wanaagsan ee qof kastaa ku shaqeeyo waa run iminka markaad yool ama hadaf ay yeelatid noloshaada waxaa cabsi ayaa yaragelaysa ama qof ayaa yara cabsanaya oo soranaya waxaan ma samayn karaysid waxaan ma qaban karaysid laakiin markuu dhegaysto ama waxyaabaha dhiirigelinta hadduu dhegaysto ama video dhiirigelina hadduu daawado qofkii wuxuu ka qaadanayaa shidaal oo ma cabsanayo oo hore ayuu soconaya waayo wuxuu sawiranayaa isagoo guulaystay ayuu sawiranayaa markaa waa inaad dhiirigelinta waxyaabaha dhiirigelinta waa inaad buugta dhiirigelinta akhrisatid waa inaad fiidiyowada dhiirigelinta daawatid waa inaad waxyaabaha dhiirigelinta dhegaystid shaa shidaal uga qaadid waayo haddaad dhiirigelin aad wax dhiirigelin aad haysan waxna aad daawan aad dhiirigelina naftaadana aad mar kasta dhiirigelin aad odhan waxaa waad gaadhaysaa waad caajisaysaa oo wixii waad ka caajisaysaa shaqadii aad haysanna waad ka caajisaysaa yoolka ama hadafkaad lahayna waad ka caajisaysaa markaa waa inaad mar kasta ku dadaashid inaad waxyaabaha dhiirigelinta aad daawatid ama waxyaabaha dhiirigelinta aad dhegaysatid qodobkeena shanaad waa shaqo la'aan qodobkeena shanaad waa shaqo la'aan ama bilaa camal saad u taqaanaan shaqo la'aantu waa waxyaabaha ugu badan ee qofka ku keena
keena caajiska iyo cagajiidka waayo shaqadu waa shayga keliya ee qofku ku dareemo isku filnaansho iyo deganaan maskaxeed waa inaad shaqo samaysatid maalintii markaad soo kacdid aad aragtid inaad wax shaqaadahay ama dhammaysay waxyaabihii aad subxii aad samaysatay ama jadwalkaad samaysatay aad dhammaystirtid aad maalintii aad aragtid inaad wax shaqaa kuu oolay inaad iska jibsatid maaha ama inaad iska nasatid waa inaad shaqo samaystid ugu yaraan meeshaad ka soo kacday subxii ee aad seexatay inaad ka shaqaysid waayo naftaada markaad ku tababartid inay noqoto mid mar kasta shaqaysa shaqo kastoo lagu diro sideedaad uga soo baxaysa laakiin haddii naftaadu noqoto midaan shaqaynba oo mar kasta iska caajisa waxyaabo badan ayaad ku guuldaraysanaysa laakiin waa inaad naftaada ku tababartid naf shaqaysa inay noqoto aan mar ula caajisay oo iyadoo iska fadhida macal oo aan wax shaqaa ama wax kalaan ahayn waa inaad adigu maskaxdaada shaqo ka samaystid oo aad tidhaahdo waxaa samee waayo shaqooyin badan ayaa nagu xeeran markaa shaqadu maaha keliyaata inaad shirkad ka shaqayso inaad doctor noqotid ee waa wax kastoo agtaad ah inaad ka shaqaysid si aad uga hortagtid caajiska 6 waa kalsooni darro 6 qodobkiina 6aad waa kalsooni darro kalsoonidu waa awoodda uu qofku ku qaban karo shaqo kuna hawlgeli karo naftaada inaad kalsooni darro horta ka qaadid wallaahi waa wax aan waa guuldarraba waayo mar kasta haddaad maskaxdaada wixii ku soo dhacaba aad tiraahid ma samayn karo aad cabsatid aad mar kasta naftaadiba aad dib u ridid aad tiraahid waxaa ma samayn kartid iska daa waxan ma samayn kartid iska daa wax waa inaad adigu naftaada mar kasta wayna dhiirigeliso waayo haddaad naftaada mar kasta ka cabsisay aad tiraahid waxaa ma samayn kartid caajis looga noqonayso qof mar kasta iska fadhiyo oo maskaxdiisa wixii ku soo dhacaba dhaca waxaa ma samayn kartid waxaa ma qaban kartid markaa waa inaad ka hortagtid kalsooni darrada waa naftaada mar kasta dhiirigelisid tirahdina waxaa waad qaban kartaa waxaa waad samayn kartaa waayo dad ayaa gaadhay dayaxa adiguna waxaa wax ka badan buu samayn karaysaa waa inaad naftaada mar kasta dhiirigelisid markaa waa inaad kalsooni darrada naftaada aad ka rabtid aad mar kastaba adigu naftaada dhiirigelinaysaa tiraahdo waxaa waad qaban kartaa waxaana waad samayn kartaa wax kastoo gacan loo qaadana waa la samayn karaa waa inaad mar kasta naftaada aad dhiirigelisid adigu okay qodobkeena 7 maanta waa cibaado yari qodobkeena 7 waa cibaado yari qof walba oo muslim ah hantida ugu qaalisan ee uu haystaa waa iimaanka cibaadaduna waa shayga keliyaata ee lagu kobciyo iimaanka haddii aad yaraysid xiriirkaad ilaahay la leedahay subxaanahu wa tacaala waxa daciifaya iimaankaaga oo intaad ilaahay u jirto ayuunku iimaankaaguna awooddiisu tahay markaa waa inaad mar kasta hortaad ilaahay tala saartid cibaadada ilaahay waa inaad badisid mar kasta waa inaad ducaysatid mar kasta waa inaad ilaahay baridid mar kasta waa inaad ilaahay mahadcelisid waayo adduunka wax lagu waarayo maaha waxa laga yaabaa inaad yool ama hadaf aad samaystay oo hadafkii ku guulaysatay markaasaa ugu guulaystay inaad dhimatidba waxaad intaasoo dhan ku soo dhijidaysay wax qura kaa raacaya ma jiraan waxa kaa raacaya mara yar oo qura oo cad markaa waa inaad horta cibaadada ilaahay aad ilaawan waad adduunka ku mashquulin markaad aragtid mar kasta waa inaad ilaahay isxasuusaa mar kastoo aad aragtid inaad adduunkii eryanaysa adduunkii ku mashquulsho waa inaad dib u soo noqoto aad ilaahay isxasuusaa ilaahayna u mahad celisaa ilaahayna u mahadnaqada ilaahayna aad tala saartaa waayo guushu isaga gacantiisa ayay ku jirtaa markaa marnaba cibaadada ilaahay horta ha ilaawo marnaba ha yareen oo mar kasta waxaad noqotaa mid maskaxdiisa ku jirto oo mar kasta maskaxdiisa ku jirto aad mar kasta soconaysa waa inaad ilaahay mahad celisaa mar kastoo aad soconaysa waa inaad ilaahay tala saartaa qodobkiina 8 xiriirka aad naftaada la leedahay oo yaraada oo qodobkiina 8 waa xiriirka aad naftaada la leedahay oo yaraada inaad naftaada xiriirkeeda xoojiso oo aad la sheekaysto dareentana cabashadeeda oo aad fahanto waxyaalaha caqabada ku noqon kara iyo waxyaalaha u wanaagsan waxay ku saamaxaysaa inaad isla jaanqaadi kartaan adiga iyo ruuxdaadu waa inaad horta mar kasta naftaada dhiirigeliso mar kasta waa inaad la sheekaysto habeenkii markaad sii saxanaysid waa inaad naftaada la sheekaysto waxyaabo badan ayaad arkaysaa oo aad subaxii markaad socoto kale aad arkayn waayo jawaabo badan iyo su'aalo badan ayaad isweydiinaysaa waxyaabo kuu xun ayaad arkaysaa waxyaabo kuu wacan ayaad arkaysaa mar kasta waa inaad noqoto markaa qof habeenkii markuu sii seexanayana naftiisa la sheekaysta subaxii markuu soo toosanaya naftiisa la sheekaysta waa naftaada ilaalin waayo mar kasta markaad naftaada la sheekaysta xaajiskii waxaas waa kaa yaraanaya qodobkeena 9 shaqo badan qodobkeena 9 waa shaqo badan mar kastoo aad hawl adag gasho waxaad u baahan tahay waqti nasasho ah oo kugu filan
shaqo badan markastoo aad noloshaada shaqo badan ama naftaada shaqo badan ay qabato ay maalintaasoo dhan shaqayso waa inaad waqtigii shaqayso waqti la mid ah waa inaad nasatid waayo naftaada markaa shaqada ku beysay marka dambe wad caajisa waayo qof nafleeya ayaa tahay markaa shaqadaada markay badato intaa shaqaysay in la mid ah waa inaad nasatid waa ruuxdaada nasatid waa naftaada nasatid waayo markaa shaqadii ku badisay marka dambe waxaa soo baxaysa qof caajislow aan waxba qaban waayo energy iyo dhanba waad iska saartay markaa waa inaad nashashadana badisid oo aad xilligaad shaqaysay xilli la mid ah waa inaad nasatid qodobkiina u dambeeya 10aad balwadaha aan wanaagsaneyn waxa ay qofka ku dhaliyaan caadooyin aan la mahadin qofkana ku keena dib u dhac nololeed waa run iminka markaad مثلا waxaan soo qaadanaa qaadka oo kale qaadka waa aragtay qofku wuxuu ku fadhiisanayaa subaxii waxaan ka kacayaa qofka ugu dhow wuxuu ka kacayaa kowda habeenimo hada subaxii buu ku fadhiistay ilaa iyo kowda habeenimo ama qofka ugu dhow ishaa iyo meelaha qof salaadii subax ku fadhiistay ilaa ishaa taas markaa maxay keenaysaa qof sariihun daaqaya maxaa waa qof halkaas uu fadhiyo maxaa noloshiisa markaa waynaad balwadaha xun waynaad iska ilaalisid balwad kasta wax faa'iido ma laha aan khasaare lahayn waqtigaagana way kaa luminaysa waxaad noqonaysaa qof aan yool ama hadaf lahayn ama qof aan la tirsan noloshiisii intuu iska soo koray sidii geed hadhowna iska qallo iska dhintay wax weelati marka adduunkan weynaad wax ku tobankan qodob u soo qaadan maayo sheeko ahaan waa inaad noloshaada aragtidaan maanta joogin halkaad ku habboonad ama halkaad ku wanaagsaneed ee aad hore uga sii gudubtid halkaa waad naftaada wax ku soo kordhisid saad ugu yeelatid bulshada dhexdeeda magac ama maamuus aad ugu dhex yeelatid soo kale waa inaad ilaawin cibaadada ilaahay ama aad yaran waayo adduunka lagu sii waari maayo markastana waa inaad noqoto qof ilaahay u mahadnaqa ilaahayna ku xidhnaada ilaahayna tala saarta tobankan qodob adigu caajiska badiya ama caajiska keena waxaas lahaa waxaa soo gudbisaa kale 12 qodob oo caajiska yareeya ayaas lahaa oo 10 qodob caajiska keena markaan 10 qodob caajiska keena markaan idiin soo gudbiyo waa inaan idiin keena wax caajiskaas ka yareeysan marka 12 qodob haddana israado bartan ku soo gudbiyo waqtiga ayaanu ku dheeraanay marka insha Allah laba video ayaanu kala qaybiyay marka 12 qodob laga hormariyo caajiska ama caajiska yareeya insha Allah video ku xiga ayaan ku soo qaadanaa fadlan like iyo saar ina si share kare comment-ga ka soo dhiibo raygaaga soo kale saad ula socotay fiidiyoyada cusubna subscribe iyo saar si anigana dhiirigelin ugu noqoto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh